wasiirka arrimaha gudaha Somaliland mudane Cali Maxamed Warar Cadde ayaa tababar ku saabsan habka maamulka kharashka dawladda hoose iyo sida loo diyaariyo mashaariicda horumarka degmada ee adeegyada bulshada u furay xildhibaanada golaha deegaanka madaxda waaxyada iyo agaasimayaasha dawladda hoose Burco. wasiirka oo hadal kooban u jeediyay ka qaybgalayaashii tababarkan ayaa tilmaamay in markaska isku duubni loo qabto hawlaha. farxadna ah inaan kala soo qayb galno hadaatiin deegaanka Burco iyo dawladda hoose ee seminaarkan oo runtii qiimo weyn u leh sidii horumarka gobolkan qayb libax uga qaadan lahaydeen. halkan waxa ku qoran misalan miisaaniyadda dawladda hoose soo gasha sida ku cadeed wareegtadii madaxweynuhu soo saaray in dhaqaalaha soo baxa waxna laga dhigo kharash iyo mushaarooyin waxna horumar laga dhigo taalafteeda anigu Burco waan idinku ammaanayaa wadooyin fara badan baa sameyseen wax badan baa qabateen cagafiya keenteen qalab fara badan runtii aad iyo aad baan idinku ammaanayaa waa sharaf iyo magac leedahay. wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Somaliland Ismaan Cabdilaahi Saxaardiid oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ka mid ah hadaladiisii badan xantu marka la wada hadlayo ama laga wada hadlayo meeyarada iyo golaha deegaanada wax kale isku ma haystaan waxay moodaan lacagta ay ummadda ka soo qaadeen inuu meeyarku khasnad uu yahay oo hayay iyaga ayaad moodaa lacagta soo gasha dawladda hoose golaha deegaankuna male meeyarkuna male annaguna malihin ummadda loogu talagalay in wax loogu qabto. barasaabka gobolka Togdheer Axmed Cabdilaahi Xamarji maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo xogayaha fulinta dawladda hoose oo iyaguna ka hadlay tababarkan ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan muddada uu tababarku socdo isla markaana hadhow ku dabaqaan aqoontii ay barteen hawl maalmoodkooda. tababarkan oo socon doona muddo 5 cisho ah kana qayb qaadanayaan 3 xubnood ayaa waxa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo hay'adda UNDP. sidoo kale waxa wasaaradda arrimaha guduhu ay tababar noocan oo kala u soo qabatay xildhibaanada iyo madaxda dawladda hoose ee degmada Oodweyne kaasoo soconaya muddo 5 cisho ah. Kays Axmed Digaale, Home Cable TV, Burco.